كسر هذا ورك جدا بيئة ودن كسوريا حالات جدا بيسي مدحينه ودن كاش بشار الأسد وعجها وحكده يصيدوا كلا واحد إيجي دونا معارض ودن كاس السنيين تها أو مال والبو ودن كاس جعانته كل جاي محابيس اللي بعطن سنة حبس وكجري أو دعدوين لياب لكشكية معي أمسيه إن محمد سياد برولي الصومالي وحكمه ودن كعراق رئيس صدام حسين حكمه إيه أرمكلو أو وين إيه أمسيه أو اللي بعطن سنة كهرها محابيس تاس iyo dhul meel ay joogaan ma oga wararkaasi kuwa kale ayaynu eegi doonaa oo ay ka mid yihiin sunniyiinta oo magaalo walba qabsaday iyo Bashar al-Assad sababta xilligan ay keentay in laga adkaado wadamada garbihiisa ka baxay fariinta uu Trump u diray balse Trump sida la yaabka iyo tees kale oo Bashar al-Assad ugu soo jawaabay wadamada la filayay in Bashar al-Assad uu tago halka carruurtiisa la aaday iyo xaaladda guud ee haatan wadankaasi Suuriya meesha ay marayso warbaahinta caalamka oo dhan ayaa indhaha ku haysa daqiiqad ayaana wararka wadankaasi loo soo tabinaya haddii aan ku bilaabo warka la xiriira xaaladda wadanka Syria oo meel adag maraysa kooxda fallaagada ee wadanka Suuriya ayaa arrimadii hore ee saakay oo axada sheegay inay Suuriya ay ka xoreeyeen Bashar al-Assad oo dalkaasi xukumayay muddo dheer kadib markii ay gudaha u galeen magaalada caasimadda ee Dimashq wararka ayaa sheegaya in Bashar al-Assad oo markaas uu ka cararay wadankiisii isla markaana aan la ogeyn halka uu markaas u duushay diyaarad xalay ka qaaday caasimadda wadamo gaar oo aan gadaal ka sheegi doona ayaa la filayaa inuu midkood tagay kooxda jabhadda tahriir al-Sham waxay ururimadii hore shaacisay inay la wareegtay xaruntii raadiyaha iyo telefishinka qaranka ee Suuriya waxa la maqlayay rasaas ka dhacaysa gudaha caasimadda warka soo baxay kooxda xukunka ka tuurtay Bashar al-Assad ee jabhadda xoreynta Sham waxay soo saareen oo ay ku sheegeen markaasi in macagagii Bashar al-Assad waan ka xoreynay wadanka oo waan ka qabsanay ay yiraahdeen waxay intaasi sii raaciyeen inuu soo dhamaaday waayo madow isla markaana uu bilowday waa cusub dadka wadanka ka cararay iyo kuwa ka barakacay ayay ugu baaqeen inay dalka ku soo laabtaan waxa kale oo ay sheegeen inay sii daayeen maxaabiistii ku xireed xabsiyada ugu waaweyn ee Suuriya ee caanka ka ahaa ama aad kale loo jirdiri jiray dalkaasi mucaaradkana xabsiyadaas aad ayaa loogu jirdiri jiray dalka ayay sheegeen inay sharci ahaan si aan sharci ahayn halkaas loogu dhibaateyn jiray oo dhibaato loogu geysan jiray xabsiyadaas wararku waxay sheegayaan in markaasi dadku ay bilaabeen inay markaasi ku dabaaldegaan fagaaraha ummadeed ee bartamaha Dimashq halkaas oo ay ku yaalaan wasaaradda dawra sida wasaaradda difaaca iyo xaruntii taliskii ciidamada ra'iisul wasaaraha Suuriya Maxamed Gazi Jalili ayaa bayaan uu saakay soo saaray wuxuu ku sheegay in xukuumaddu ay diyaar u tahay inay si nabad ah xafiisyada dawladda ay ugu wareejiso mucaaradka isla markaana ay diyaar u yahay in arrintaasi uu ka caawiyo tan ayaa ka dhigan in maanta halkaasi uu ka dhamaaday 54 sano oo Suuriya ay soo xukumayeen qoyska reer Assad ayaa muddadii ay xukumayeen wadankaasi Suuriya ee 54 sano ahayd waxa ay ahayd xaalad madow iyo xaalad mugdiya waxaana dad badan ay ka raysan doonaan baa la leeyahay oo wadankaasi ku nool dhibaatadii uu ku hayay Bashar al-Assad ee aadka u xumeed muddadii dheereed waxaynu eegi doonaa markaana maxaabiista oo laga soo qaaday ee Suuriya iyo waxyaabaha ay ku hadlayaan ee la yaabka caalamka ku noqotay qaar ka mid ah maxaabiista ay xabsiyada Suuriya ka sii daayeen mucaaradka Suuriya ee hubaysan oo la wareystay ayaa sheegay inaysan ogeyn inuu geeriyooday Hafez al-Assad madaxweynihii hore ee Suuriya inuu geeriyooday ma oga waxayna intaas ku dareen inay markaasi aaminsan yihiin inay sidaan ciidanka ka socda Saddam Hussein ay markaasi iyaga sii daayeen waa ciidamadii Saddam Hussein 2003 la dilay ciidamo ka socda uu leeyahay in iyaga sii daayeen ay aaminsan yihiin xaaladdu waa mid guud oo halkaas ay maraysaa ciidamada Suuriya ayaa sheegay inay dib ugu noqon doonaan koonfurta si ay u sameeyaan xayndaab ammaana kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay lumiyeen gacan ku haynta inta badan gobolka Darac mucaaradka ayaa iyaguna iyo dhammaan ciidamadoodii ayaa isku sii dhiibaya oo ku sii qulqulaya dhinaca dabcan dawladda
oo waxa ka wada dhinaca mucaaradka ay isku dhiibayaan ciidamo fara badan oo hubaysan ayaa isku dhiibay maamulka dabcan cusub mucaaradka ah ee wadanka la wareegay waxay ku dhawaaqeen mucaaradku in la xiray baal kasta oo mugdi ahaa oo Suuriya iyagoo war-saxaafadeed rasmi ah ku cadeeyay qof kasta oo muwaadin Suuriyaan ah inay markaasi ay ula mid tahay waqtigan maalinta uu dhashay mana jirto bay yiraahdeen qof dambiila ah ilaa midka ka soo horjeeda kacaankana ha ahaadee war-saxaafadeed looga hadlayay shacabka Suuriyana loogula hadlayay oo ay baahiyeen mucaaradku waxay sheegeen Suuriya cusub waxay noqon doontaa bay yiraahdeen dawlad damaanad qaadaysa sharafta cadaaladda iyo hay'adaha ka tarjuma rabitaanka dadka ra'iisul wasaarihii xukuumaddii nidaamkii al-Assad ee Suuriya Maxamed Ghazi al-Jaliili waxa uu wajigiisa ka ilaashaday taariikh markaasi mahadda ku noqon lahayd dabcan waa sunni balse waxa uu qaatay go'aan markaasi maangal ah markii uu baahiyay muuqaal uu ku sheegayo inuusan ka bixi doonin Dimashq oo hayn doono markaasi faylayaashii dawladda iyo xarumihii dawladda nidaam kasto hal kalsooni shacabkuna hal la shaqeeyay nidaamka waxa lagu kalsoonaaday arrimo kale ayuu yiri mucaaradka Suuriya markay la wareegeen Dimashq ay xaqiijiyeen inuu baxsaday al-Assad oo xukunka gacantooda ku soo dhacay ayay waxa ay markaasi wuxuu soo saaray hogaamiyaashooda sarsare go'aan ay uga mamnuucayaan xogaga mucaaradka inay gudaha u galaan xarumaha hay'adaha dawladda iyo adeegga bulshada iyagoo ku amray in shaqadii dawladda sii hogaaminayo ra'iisul wasaarihii nidaamka al-Assad oo aan ka bixin Dimashq wax walbana waxay Dimashq ugu soo noqonayaan bay yiraahdeen sida markaasi jawiga u ahaa maalin ka hor gelitaankii mucaaradka Imaaraadka iyo Ruushka ayaa ku guuldareystay dadaalo iyo qorshayaal ay ku doonayeen saacadihii ugu dambeeyay inay ku qanciyaan Turkiga inuu markaasi mucaaradka ka joojiyo Dimashq si gaar ah Moscow ayaa markaasi burbur kala kulantay qorshe ay kala shaqeynaysay Abu Dhabi oo Imaaraadka Carabta oo lagu doonayay inay saraakiisha militariga iyo wasaaradda difaacu ay ku dhawaaqaan afgambi in xukunka looga tuuray Bashar al-Assad kadib markii ay saraakiishu kala qaybsadeen sida ay ku waramayso wargeyska markaasi la yiraahdo Wall Street Journal Iran ayaa wada xaajood la furtay mucaaradka Suuriya ee la wareegay maamulka Suuriya si ay markaasi u hesho khad ay kula xiriirto mucaaradka iyo imraan markaasi iyo marin ay raahdeen ammaan ah oo ay kula bixi karto ciidanka iyo hantida ka taalla gudaha wadanka Suuriya sida ay ku waramayso wargeyska New York Times hoggaanka mucaaradka ayaa la sheegay in dhammaantoodba ay markaasi qadsiyeen Iran oo la xiriirin inay qadsiyeen Iran oo aysan la xiriirin oo markaasi ay arintaasi ay uga jawaabi waayeen si kastaba ha ahaatee meesha Bashar al-Assad iyo qoyskiisu u carareen waxa lagu sheegayaa inay dhowr wadan midkood noqon karto wadamada sida weyn loo hadalayo waa Imaaraadka iyo sidoo kale wadanka la yiraahdo Ruushka labada wadan ayaa la sheegay inuu carruurtii geystay isaguna uu naftiisa ula cararay halkaasna uu ku sugnaan doono Imaaraadka Carabta ayuu Bashar al-Assad ka codsaday inay Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Donald Trump la hadlaan si isaga loo badbaadiyo hadda kadibna uu isku dhiibi doono sidoo kale Ruushka gacantiisa uu ka bixi doono laakiin Trump ayaa taa ku qoslay wuxuuna garab taaganahay bii mucaaradka la wareegay wadanka Suuriya Bashar al-Assad waxa uu ku tilmaamay dhiigyacab in la iska qabtaa ay tahay guul ka weyn mid aysan jirin Bashar al-Assad maanta cidla ayuu yaalaa Suuriyana muddo dheer ayuu soo xukumay kumanaan ayuu gacantiisa ku dilay malaayiin ayaa wadanka ka cararay malaayiin kalena waa ay ku barakaceen gudaha wadankii Suuriya ee ka mid ahaa dawladaha ugu tunka weyn ee Carbeedna waxa uu ka dhigay digada iyo baaba ma santiin ilaa halka dana la soo gaartay muuqaalka la garay saaxiibada la wada sina sheer garay waa ma santiin nabadgelyo